baqaya sanadiyo bilay in naftu ku bugta sooya war degdeg baan idin hayaa gabadhan la weerarayo habeenkii go ay bulshada ogo rarbida badidood maqale bulshada ogo rarbida badidood maqale inana halbasta asaxibka badiyo ina baacadiyo sidkood saaniyo weydiiba boosh soo dhawaada gabadhan waxaa ku saleeday askarta Jabuuti iyo Ismaaciil Umar Geelaan uu sheegaynaa maanta soo dhawaada bal saxibka badiyo ina baacadiyo sidkood saaniyo weydiiba boosh soo dhawaada dhammaantiin bayloodkii la xidhiya waxaa gabadhiisa ku saleeday garan mayne soo dhawaada inta caqliga laba weydii abaahi ku qabto waxaad baanan laydin wadbogsi lahay isi shargaraya barnaamijka soo dhawaada dhammaantiin aboholyo nafta abaahi ku qabto waxaad baanan layd wadbogsi lahayd abo ku taali jirhkee soo dhawaada war culus baan idin hayaa hala soo dhawaado wixii bartacay habeenkoo bari tegay ina bararugo baa la hadaye wixii bartacay habeenkoo bari tegay ina bararugo baa la hadaye inana haybista asaxibka badiyo ina baacadiyo asidkood saaniyo weydiiba boosh soo dhawaada inana haybista adala asaxibka badiyo ina baacadiyo asidkood saaniyo weydiiba boosh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقدومي باب الله يويدين كلا صوحة ليا هالكي سيرد يودن كاوستري يا قارهان قبل كتيرو عاصمة آينس بلوغ المركز تو الجوكتان باكو سو لوانا بل قبلنا هبين كستمر الله دعيه لوغو دعيه جبوتي وان وركيدي إلا إيمانتا آن كجري يعني قو ورياهاي قمدنا ودرونا وحد الله الله waxaan u soo sheegayaa madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele iyo dawladdiisa badamaantiin baa anigoo idin salaamaya waxaan idin leeyahay meel kasta oo aad joogtaan ba haddii aad fariintaydan dunida dacaladeeda meel kasta oo aad joogtaan ba annagoo idin soo ducaynayna shacabka Jabuuti iyo dadweynaha sharafta iyo karaamada mudan meel kasta oo aad joogtaan dunida dacaladeeda waxaan halkan idinka soo gaarsiinayaa oo madaxweynaha Jabuutina aan soo gaarsiinayaa iyo dawladdiisaba war annagu waxaanu nahay ummad jaarkaaga ummadda Soomaaliyeeda jiirkaana nuugu ka yaala Jabuutina canfar iyo Soomaali midnaba ma necbin
gabadhan habeen walba loo hanjabaya ee gurigeeda loogu dhacayaana ismaaciil cumar geelow yay kula xumaanayna waa taad qabto oo kale weeyaan waa gabadhaadoo kale weeyaan ismaaciil cumar geelow gabadhaadoo habeen kastaba loo dhaco carruurteedana la laayo carruurtaadana la laayo oo loo hanjabo maxaa ka xun gabadhani ha isku dhowaan waa gabadh ciise muuse isaaqa waariya ismaaciil cumar geelaan halkan ka soo sheegaya gabadhani waa habar yartay weeyaan waariya ma aha gabadh ciyaara wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaad 100 nin u dhiman doonaan 100 nin inankiina sidaad doonaysid inankiina googooba haddaad doonaysid gabadhan iyo carruurtan aanu abtiga u nahay ee halkan ku jira ee gabadhan haddaad naga guursateen oo gabadhani reerkan u dhaxday ismaaciil cumar geelo waxay dadkaaga ku samaynayaan iyo waxay askartaadu ku samaynayaan gabadhan ma cidla caarsilaad moodaysaa ismaaciil cumar geelow wallahi inaan xagga badda soo mari dooniyo bilaahi iyo tallaahi inuu elektriye kaaga darnaane ha iskugu dhowaan gabadhan iyo carruurtan haddaa iskaga baydh aabahood baad xidhay aabahood baad googoysay aabahood baad jidhiin god ku riday aabahood baad haysataa aabahood baad xaqdarro ku haysataa aabahood baad saamixi kari weyday aabahood baad sii dayn kari weyday aabahood baad ilaahay dartii u sii dayn kari weyday aabahood baad ilaahay wejigii ku sii dayn kari weyday aabahood baad intaasoo ummadda soomaaliyeed ay kula soo hadashay aad ku ixtiraami weyday ilaahay dartii baad ku sii dayn weyday maxaa kugu saleeday habaryar gabadhan noo habaryarkee ciise muuse maxaa kugu saleeday taad qabtaaba waxa weeyaan isaaqe gabadhani ma kula ciyaar baa ciise muuse maxaa kugu saleeday gabadhan ciise muuse ee reerkan u dhaxday ee ninkeeda aad haysato ee ninkeeda aad dishay ee ninkeeda aad aftuubtay ee ninkeeda aad hadan ku haysato ee korneelkaagiiya waxaad ku haysataa waa maxay iska soo raro iska soo wareeji iyadii carruurteedaba noo keen hargeysa iyadii carruurteedaba noo keen hargeysa oo u keen dadkay ka dhalatay abtayaashay u keen sideed habeen walba aniga habaryartii aad ugu hanjabtaa sideed habeen walba inanta halkaa idinla joogta ee la xididka tihiin dawladdaadu ay ugu hanjabtaa ismaaciil cumar geelow miyaad naga xishoonayn taad qabtaa waayo miyaad naga guursan miyana beelaha uun ka mid ahayn soomaaliyeedaad la xididka tahay kuwa somalilan habaryartay maxaa ka uray ma diyaarad bay waday iyadu ma baylood bay ahayd iyadu ma waxbay kugu tiri iyadu carruurta ma waxbay kugu tiri sidee baa loo dhirbaaxaa sidee baa loogu hanjabaa 24 saacadood gudahood diyaarad noo soo saaro noo keen ka soo deji waariya hargeysa nooga soo deji naga looma hanjabo habaryarahay looma hanjabo annaga adeer habaryarahay habeen walba gabadhan loo dhacaya ee halkan loogu dhacayaa waa baabulaahi habaryartii weeyaan waa naag ciise muuse laandheera weeyaan waa naag laandheera ciise muuse weeyaan sidee baad ugu hanjabtaa habeen walba iyadu ma ninkiibaad haysataa ninkeedii baad ka haysataa carruur agoona baad haysataa oon agoonna ahayn oon wax kalena ahayn sidaad gabadhan ugu hanjabtaa ma wax kaa qabtaa la waayey har dhaqankiina garan mayna iyo diintiina iyo milladiinnabe ha u hanjabina gabadhan carruurteeda iyo gabadheedaba iska soo wareeji noo soo wareeji iska soo saar diyaarad ka soo deji madaarka hargeysa ka soo deji iska soo wareeji gabadhan habeen walba ay askartaadu u dhacayso ay habeen walba carruurteeda la laynayo ee habeen walba aad u hanjabayso ninkeedii baad haysataa halkaasaad ku haysataa ummaddii jabuuti baa kula hadashay ilaahay iyo ummaddiisii baa kula hadlay caalam oo dhan baa kula hadlay waa raggaaga amba xiniya ka saar amba kurtaba ka wada gooyo adigay kuu taallaaye waxaanu kuu sheeganoon ku leenay inantan hanjabaadda ha laga daayo ooyeysa inantan hanjabaadda ha laga daayo habeen walba gurigeeda loogu dhacayo bayloodkii wax kugu sameeyey iyo ninkii aad wax ka tirsanaysay gacantaad ku haysaa adigaa suuli ku xidhay adigaa gubaya haddaad doonto googo annagu kaasoo kale waanu ka dagaalaman jirnay ismaaciil cumar geelow ina askar buu ahaa markii haashka lagu dhadhajinayey kii ka damqadayna ibraahim koodbuur iyo ragga la socday bay ahaayeen iyo tugri iyo raggu la socday annagu haddii ay hargeysa dhexdeeda tahay muusaanu la bixilayno wallaahi ah muusaanu la bixilayn haddii nisaa lagu sameeyo annagu iskuma habayaanna saaxib habayaanka ma naqaano jabuuti bay u taallaa hadday la baxayaan iyo haddayna la baxahaynba bayloodkooda waanu se idiin soo ducaynaynaa haddii laydinka xoog roon yahay shacabka jabuutiyo waxaanu se annagu fariin idiin soo faraynaa haddaa cuqaal leedihiin haddaa dhaqan leedihiin haddaa odayaal leedihiin haddaa nimanka ciise tihiin inantaydan yaan loo hanjabin iyadiiyo carruurteedaba iska soo wareejiya ha agoomowdee iska soo wareejiya annagaa sharaf iyo karaamada iyo xididka iyo xiyaalka iyo dadnimada iyo karaamada iyo sharafta iyo soomaalinimada iyo insaannimada iyo waalidnimada iyo ixtiraamkaba naqaanee iska soo wareejiya gabadhaaya habaryarka iska soo wareejiya yay ciyaar idinla noqonin
هاي عيسى كقال سوى ناق عيسى موسى كسو وريجيه هدينا odayaashina ayna waxba ka qabanay haday ragii la xididka ahaa ayna waxba ka qabanay hadii habeen walba caruurtan oo abtigana hay la dilayo iska soo wareejiye gabadhan madaxweynaha waxaan u leenahay gabadha iyadu lacag diyaarad kaagamay kaxaysan diyaarad kaamay kaxaysan bayloodnay kumay hadal inantan aad qabta iyo inantanna waa isku mid haddaanad naga xishoonayn oonad karaamo lahayn habeen walba askartaada u dhacda war gabadhani waa gabadhii habaryaro waariya ciyaariyay kula noqon iyadii caruurteediiba iska soo wareeji ka soo deji Hargeysa nuugu dhiib sulaadiintayada nuugu dhiib Suldaan Maxamed gacanta ka saar iska soo wareeji gabadhan habeen walba loo hanjabayo ma naftaad iyadana ka goynaysaa iyadii caruurteediiba ma naftaad ka goynaysaa waa ragaaga Allah hadaad laynayso waar suuli ku kor hadaad ku gurayso waar ciiso dhan jar hadaad jarayso waxaanu ka xanaaqnay gabadha xalay toona gurigeeda loogu soo dhacay ee dabatina caruurteedii la laayay 12 maanta khadka telefoonka ayaan ku xidhnaa wariyahayga midhina u durno waa ii soo sheegay markay inay habaryartayba tahay nin habaryartii lagu agdilaad waarna moodaysaa habaryartay abtigay toona anaga nuluguma agdiro iyo seedigay toona ma naqaana dhaqanka waxaanu ku leenahay Ismaaciil Cumar Geelow gabadhan faraha ka qaadiya caruurtan waxaan u sheegayaa shacabka Jabuuti ee qurba joogta meel kasto ay joogaanba reerkan kaarabadii laga jaray ee habeenkii loo soo dhacayo ee agoonta ee aan agoon ahayn in abahood dhiman haaf agoonta ee abahood la silcinayo ee halkan dawladdiisii ay ku haysato waxaanu idin leenahay ee bila kaarabada ee darxumaysan ee aan qadaynin ee aan seexanin ee kaarabadii laga jaray ee gurigood ku baay ee halka fadhido ee fiidiyoga imika barada bulshada soo dhigi doono ee ay ooyeyso hadii nasab tihiin oo goba tihiin bal caruurta oo ka war haya atii kale 24 saacadood gudahood diyaarad nagu soo saara annaga inantayadii tahay annaga iyadii caruurteedaba haysan naqaano gob dhashay 24 saacadood gudahood adeer nooga soo dejiya Hargeysa keena muqdisho nooga soo dejiyo Hargeysa nooga soo dejiyo meesha doontaan nooga soo dejiyo waxaanu idin leenahay dadku waxay lahaan jireen dhaqan dadku waxay miyadan dad Soomaaliyeed ahayn madaxweynihiina hadaydaan la hadli karayn miyaydaan odayaal lahayn miyaydaan cuqaal lahayn maxay gabadhu samaysay muxuu ilmaa yara 15 jirkii sameeyay maxay caruurtayn furlaba samaysay ciise annaga deen gabadha saa dhashay caruurta gabadha iyadiina habeen kasta waxaanu arkaynaa iyadoo Facebook ka ooyeysa oo dabeetana soo dirayse yay kula hawl yaraan waa naag Ciise Muuse hariyay kula hawl yaraan Ismaaciilo waa taad qabto kale weeyaan taad qabto kale miyaad jeceshahay habeen walba in guriga lagu soo daato oo gabadhaada la dilo oo ilmahaaga la dilo oo caruurtaada la dilo oo loo hanjabo Ismaaciilo miyaad ogashay gabadhan faraha ka qaada kaarabadii baa ka jartayna faraha ka qaada ninkoodii baa ka xidhayna faraha ka qaada masaariif ma haystaan faraha ka qaada cunto ma cunaan faraha ka qaada ma u nabad gelisaan dabatina gurigooda ma gurigooda u nabad gelisaan iska soo wareeji baan ku leenahay haddaad ilaahay nabad ka doonayso haddaad ilaahay nabad ka doonayso gabadha ay dawladdaada iyo fataariintaadu habeen walba ay u dhacayaan ee kuwa ay u dhacayaan ayna xaq ku sheegayn eena anagu ku leenahay war nin weyn oo madaxweynaha baad tahay nin weyn oo sharaf leh baad ahay nin weyn oo Jabuuti haystaad ahay ina yar baa kugu qaldamay oo dawladdaada kamida oo aad adeer u tahay kiiba dabeetana aad ka xishoon kari weydood karisay sida naaraha gabadhayada hadaba karin maysid warya gabadhan iyo habaryarka karin maysid iyo caruurteedaba 24 saacadood gudahood iskaga wareejay Suldaan Maxamed nuugu dhib iyo dhagaweyne Suldaan Maxamed iyo dhagaweyne nuugu dhib iska soo wareejay annaga masaariiftana u dirayna gobna hayna naqaana caruurtay waabtiga yihiin iyo waxay u habaryarka yihiin bay noo soo wareejay gabadhana naxdinta iyo xaqa iyo qoriga iyo afka duuban iyo dhacista loo dhacayo iyo habeen walba askartaadu ay u dhacayso waa mid aan dhaqanka Soomaaliyeed ku jirin gabadhani diyaarad may kaxaysan gabadhani maaha Fuaad gabadhani maaha baylood gabadhani waa gabadh hooyo intaasoo caruuray haysataa inta caruuray haysatana idinka idin haysa hadaydaan ka ridi karayn oo idaan ka ridi karayn oo halka maraysaan oo reeji buuto halka maraysaan oo nimankii Ciise halka maraysaan gabadhayadan iyo caruurtayadan daawan karimayna annaga gabadheeda noo soo wareejiya annaga amaankeedana qaadayna